waxaa run ah in qof kasta oo dunida ku nool uu jecel yahay inuu guul ka gaadho noloshiisa habeen iyo dhalaarna uu ku riyoodo sida uu meel fiican uu guushaasi ugu soo hoyn lahaa inkasta oo sida guusha loo yaqaan ama nooca guushu ay dadku ku kala aragti duwan yihiin si kasta uu qofku ugu dadaalo inuu guul gaadho haddana dhibtu waxay tahay inaanu marnaba ogeyn jidka uu hayaa inuu yahay kii uu guusha ku gaadhi lahaa markana ku soo dhawaada taxanaha sheekooyinkii guusha Jack Ma waa muwaadin u dhashay dalka China kaasi oo ku guuldareystay inuu ku biiro college tiro 3 jeer ah ugu dambeyntii wuxuu si dirqi ah ku dhaafay imtixaankii kadib markii uu sameeyay dadaal aan caadi ahayn waxa uu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxi cuntada lagu kariyo laakiin badankoodii waa ay ka diideen inay shaqo geliyaan kadib markii uu isku dayo badan shaqo meel kala duwan u dirsaday ee loo diiday ayaa waxa uu go'aansaday inuu shaqo macallinimo raadsado sababtoo ah wuxuu ku guuldareystay inuu shaqo taadhaanta helo Jack Ma wuxuu dhigi jiray luqadda Ingiriiska isagoo qaadan jiray lacag ka yar $10 bishiiba ka hor intii aanu bilaabin dhigista luqadda Ingiriiska Jack Ma wuxuu aad u jeclaa inuu horumariyo habka uu u hadlayo luqaddan waxa uuna 45 daqiiqo gudahood ku kaxaysan jiray baaskiishiisa si uu u aado hoteelo ka ag dhawaa meeshii uu degnaa oo ay dadka dalxiisayaashu imaan jireen si uu isaga dhiso luqadda Ingiriiska Jack Ma kuma qanacsanayn shaqadiisa waxa uu go'aansaday inuu u guuro dalka Mareykanka si uu u helo nolol ka fiican tii uu ku noolaa wuxuu bartay kombiyuutarka iyo internetka aad ayuuna u jeclaa markii u dambeysayna wuxuu aasaasay website-kiisa loo yaqaano alibaba.com kaasi oo u saamaxay ganacsatada iyo shirkadaha inay ku kala ganacsadaan oo isku dhaafsadaan alaabta si online ah Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalka China hantidiisa maanta waxaa lagu qiyaasaa $21 bilyan waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 25 ganacsi oo ugu awoodda badan qaaradda Asia Jack Ma uusan haysan wax lacag ah oo uu ku bilaabo ganacsi waxa uu ku shaqayn jiray mushaar aad u yar waxa uu si dirqi ah ugu biiray maxadka tababarka macallimiinta intaa waxaa dheer in waddanka Shiinaha aanu waqtiga ahayn meel ku fiican in lagu noolaado ganacsiga laga bilaabo Jack Ma dhaqaalihiisa iyo lacagtii uu haystay sanadihii ugu horeeyay kamay badnayn inta aad hadda haysato haddii aad intaa haysatana kama uusan badnayn ninkani wuxuu aad u jeclaa oo kaliya inuu abuuro ganacsi guuleysta taasina waa sababta uu u raacay riyadiisa aanu u xaqiijiyay haddaba waa maxay udurdaarada aad maalin walba naftaada u sheegtaa lacag kugu filan ma haysatid waxbarasho fiican ma haysatid dadka kugu heeran kuma dhiirigeliyaan kumana garab istaag Jack Ma muu haysan qof dhiirigeliya oo cadaadiya balse damaca xoogan ayaa gubay nafsiisa si uu u guul gaaro maantana waad aragtaa guulaha uu gaaray waxaa suurtagal ah inaad ka bilowdo ganacsigaaga meel aad u hooseeya kadibna aad noqoto bilyaneer Jack Ma wuxuu tusaale fiican u yahay dadka ka soo bilaabay ganacsigooda meel aad u hooseeya iskuna daray liiska ugu sareeya ee taajiriinta adduunka shardi ma aha inaad hore guul ka gaadho Jack Ma wuxuu guul gaaray isagoo da'diisa lagu qiyaasay 30 sano jir marka niyadaada iyo hamigaaga weyn tahay waxyaabaha hoose kuma dhibi doonaan Jack Ma wuxuu ku noolaa nolol adag muu ahayn qof nolol raaxo leh ku nool muu lahayn gaari iyo bangi lacag u taalo toona balse wuxuu cadeeyay oo adduunka tusay in haynta iyo dhaqaaluhu aanay caqabad ku noqon doonin haddii riyadaada iyo hadafyadaadu ay waaweyn yihiin